عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal magacaygu waa Maxamed Soomaali channelka aad daawanaysan waa Maxamed Soomaali. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo xog ku saabsan lotteriga sida daraadeed dhammaan dadka xareeyay lotteriga waxaan rajeynayaa in ay muuqaalkan ka faa'iideystaan hadduu la ku idmahayo maadaama aan wada xareysanay lotteriga teamka aan anigu ku jiro waxaan sugaynaa haddii ay kala noqdo 7 bisha May ama bisha 5aad natiijadii in la doortay in kale. marka qofka la doorto waxaa jira form uu buuxinayo hadduu kala noqdo formkaasi waxaa la yiraahdaa DS260 ama da'sa 260 formkaasi waxaad ku xusaysaa ama ku buuxinaysaa dhammaan xogahaada oo idil haddii ahaan lahayd oo xogta adiga kugu saabsan magacaaga magaca aabahaaga magaca hooyada baasaboorkaagii waxbarashadaadii waxyaabo badan oo halkan aan kusoo koobi karin baa lagu buuxinayaa. xogtan aad bay muhiim u tahay wayna ka fara badan tahay xogtii aad soo gelisay markii ugu horeysay ee aad xareysanaysay lotteriga. DS260 markii aad buuxisid waxaa jira waad diraysaa markii aad dirtid oo aad submit tiraahdid case number baa jira oo qof kasta oo formkaasi buuxiye la siinayo ama loo soo dirayo. case numberkaasi waxa weeye qofka aad ka tahay inta qof ee lotteriga xareysay. tusaale ahaan haddii aan ahay qofka 100 case number 100 baa la siinayaa. marka kulama aad hore u xareysid ama formkaasi aad u buuxisid sida ugu dhaqsiyaha badan markii lagu doortaba waxay ku sahlaysaa in aad noqotid dadka ugu horeeya ee haddii alla ku idmahayo interviewga ama wareysiga la yeelan doono. markii inta aad martid case numberkaaga aad heshid balan baa lagu qabanayaa safaaradda markaas kuugu dhow ayaa mataqaanayo lagu qorayaa hadduu alla ku idmahayo. marka safaaradaha way kala wanaagsan yihiin lagu qorayo halkan aad isaga hubi. safaaradda Mareykanka ay ku leedahay Kenya tan ay ku leedahay Ethiopia iyo tan ay ku leedahay Djibouti way kala wanaagsan yihiin. markastana dadka waxaa lagu la taliyaa markii aan indhayn badan aan sameeyay in ay dadka ka dhigtaan Djibouti, Hindiya iyo meelaha adiga ku dhow aan ahayn Kenya. waayo Kenya ma aqoonsana dokumentiga Soomaaliya ee waxbarashada ku saabsan. dokumenti kasta oo aad la tagtid safaaradda Mareykanka ee Kenya ku taala ma aqoonsanayso dokumentigana waa muhiim. sidaa darteed waxaa laga doonayaa Djibouti iyo meelaha fudud inaad ku qortid. waliba Djibouti ayaan idinkula talinayaa haddii alla ku idmahayo. inta marka maxaa lagaaga baahan yahay markii interviewga la gaaro. interviewga markii la gaaro waxyaabaha lagaaga baahan yahay oo aad diyaarsanayso waxaa kamid ah shahaadooyinkaaga waxbarasho. haddaad degree ku xareystay shahaadada degreega tii dugsiga sare oo dowladda federaalka ah midan ma aha dalada ah. haddii aad kuwan dalada ah haysatid waxba kuu tari mayso hadduu alla ku idmaayo. marka dokumentiyadaada iyo shahaadooyinka dhammaan waa inay ahaadaan heer federaal. sidaa darteed waxaa laga baahan yahay inaad soo tasdiiqiso shahaadada dugsiga sare iyo tan jaamacaddaba intaba wasaaradda arrimaha dibadda kuugu dhow markaas tag hadduu alla ku idmaayo. warqadda caafimaad oo kale iyadana waa la iska rabaa. warqadda caafimaad markaad interviewga maraysid ka hor baa la qaataa. sidoo kale warqad shaqo haddii aad tiraadid skill baan leeyahay waan shaqeeyaa warqadaada shaqada ama shahaadada shaqo inaad haysatid waa muhiim iyadana hadduu alla ku idmaayo. waxyaabahaas oo dhan markii aad diyaarsatid baasaboorkaagii waxa oo dhan marka aad isku urursatid waxaad u gudgalaysaa interviewgaagi. marka interviewgu wax kale lagugu weydiin maayo hadduu alla ku idmahayo. waxaa lagugu weydiinayaa DS260 formkii ahaa ee aad soo buuxisay wixii ay kusoo buuxisay waa wax laga weydiinayaa. haddii aan leed waxbarashadaada haddii aan leed qofka aad doonaysid inaad mataqaanayo u tagtid ama adresska aad rabtid inaad ku degtid maadaama de Mareykanka uu isagoo ku qabo inuu fiisaha ticketka kaliya ka rabo aan wax kale ku weydiinin qof permanent ah oo halkaas deegaan ku ah inaad heshid iyadana waa muhiim. DS260 intaadan buuxin ka hor waxaa laga rabaa inaad sii diyaarsatid qofkaas cause DS260 formka ahi waa ku xusan yahay ama way ku jidhaa qofka aad haystid ama qofka aad u tagi doontid haddii ay kala noqdo Mareykanka oo aad la sii joogi jirtay intii aad ka helaysid green cardkaaga waa muhiim marka adresski iyo wixii inaad heshid qofkaas waa inuu ku diyaarsan yahay. intaa kadib interviewga markaa martid marka waxaan rabaa inaan xuso marka lacagaha kugu baxayo haddii aad rabtid inaad Djibouti marka ku martid interviewga. tusaale Djibouti haddii interviewga aad ku maraysid
ugu badnaan adigu $300 baa kugu baxaysa. Warqadda caafimaadka ah oo 330 meelahaas ah waa 630. sidoo kale 330 kale oo ah fiisaha Mareykanka aad ku tagaysid oo isku noqonaysa dhamaantood $9,960 ay yiraahdeen. intaas bay noqonaysaa. Tikitkana wuxuu noqon doono ma garanayo markaas ku xiran tahay aad tagaysid. Tikitka hadba wuu isbedbedelaa qofka xilliga uu tagayo bay ku xiran tahay. haddii aad doonaysaa DS 260 in aan foomkaasi muuqaal ka sameyno anagoo buuxinayna form aad u balaaran way ilaa 12 page meelaha ka kooban. marka iyagana insha Allah waxaan ku ogaan doonaa comments-ka ka soo bixisaan in aad rabtaan in muuqaaleeda kaga soo sameeyo iyo in kale. waxaan rajeynaynaa inaad u share gareysaan dhammaan cid kasta oo xareysatay lotteriga. intaas ayaan kusoo afmeeriyaa. waxaan rajeynayaa inaad kusoo biiri doontid dhammaan ciwaanada aan ku leeyahay social media sida Facebooka, YouTube-ka, Instagram-ka, Twitter-ka, TikTok dhammaantood oo ku qoran Maxamed Soomaali. wabillahi tawfiiq.